السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولاشين عشاكين وإلهي مهدي هدي أنا سكسور لابني مر لباد إي مر سدحات إي مر أفراد إذن كون نبضي يعني كون نبضة أصحابي هدي أد channel كعصب تهي أو تهي مركي كوجو الرئيسي وعن كعصني سبسكرايب إن صارت إي لايك إي شير هدي أد نلوجوكتنا لايك فربضن إي شير بعدين كعصنا يا إذن مجود بريهان ملئي حيسي وان كالمقنين بريو حابل إيه ورم حالدين سديت تهي أصحابي ذكو حرن channelكيغا waxaan hawada idin soo marnayaa salaan aad iyo aad u qaalisan asxaabay maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo qodob igu soo laalaabtay oo maxay ahayd aad ma aragtay aan markii aan fiiriyay aad maxay ahayd muhiim u ah baan rabaa inaan maanta ka hadlo haddii aad ogtahay haddii kalaba adduunkan aan ku saaranahay dushiisa saaranahay maalin kasta waxaa aragtaa waxyaalo fara badan waxaa aragtaa waxyaalo horumar ah waxaad aragtaa waxyaalo dhib ah waxaad aragtaa waxyaalo kala duwan oo maxay ahayd ummaddu ay hiigsanayaan marka haddii aan nahay Soomaali maxaan hiigsanaynaa maxaan haminaynaa maxaan qorshaysanaa ma isweydiinay bal aan maanta ka sheekaysano ka Soomaali ahaan waxa koow maxay ahayd dhibka ugu horeysta oo na haysta bal aan ka iska wareysano asxaabay waxaan idin sheegayaa wasaaradda caafimaadka adduunka ee markii la soo gaabiyo loo yaqaano WHO baa waxay diyaarinaysaa tallaal waa vaccine tallaal waxay diyaarinaysaa qaas ah yuu qaas u yahay tallaalkaas Soomaalida tallaal Soomaalida kaliya qaas u ah bay hadda qorshihiisa bilowda sanadkan aan ku jirno 2021 muxuu yahay tallaalkaas aan isweydiino waa noocee maxaa Soomaalida kaliya u qaas ugu yahay bal barnaamijka aan u sii guda galeynaa akhyaaray haddaan nahay Soomaali number 1 waxaan ka fikirnaa waxa la yiraahdo qabyaalad qabiil waxaad moodaa waliba baryahan dambe in la sii casriyeeyay qabyaaladu waaba la sii casriyeeyayba sanadba sanadka ka dambaysa aad bay ma aragtay saameyn xoog leh nagu yeelanaysaa maxaa koos garaynay arrintaas bal aan isweydiino bal idinkuna isweydiiya bal wixii tala bixin idinkuna ka soo hadla aqyaaray Soomaalida waxaad moodaa dhalinyaradii dadkii waaweynaa markii laga soo gudbo jiilalka dambe ee hadda soo baxay baad waxaad moodaa cudurka la yiraahdo qabyaalada inuu aad ma aragtay uu sameeynayo faafitaan bismeetalik inuu noqday baad u maraysaa cudurka qabyaalada ahaa uu faafayo aad u sii faafayo maalinta ka dambaysa haddii aad gasho baraha bulshada oo wax yar soo fiiriso bal meelaha waxyaalaha ma aragtay la soo gudbiyo boqolkiiba 90 waxaad ugu tagaysaa qabyaalad anoo reer hebela idinkoo reer hebela annagoo saana idinkoo saana gabar qurxoon iyo annagoo qurxoon iyo meeshii aan ka sugaynay baan waxaan la kulmaynaa daqiiqada ka dambaysa qabyaalad iyo foolxumo iyo cay iyo iscay kaasoo asalkiisu ugu soo biishubanayo qabyaalad marka wasaaradda caafimaadka adduunka waxay qaban qaabinaysaa tallaalka qabyaalada oo lagu bilaabayo waliba Soomaalida qaas ahaan qurba joogta ayaa waxa lagu bilaabayaa tallaalka qabyaalada number 1 priority kow ayaga la siinayaa because ayaga ugu qabyaalad badan dadka qurba joogta ah diyaar garooba uu soo baxaya adigu muddo 3 months gudaheed waa diyaar waxaan lagu bilaabayaa qurba joogta isdiyaariya ilaa idinka joog lidinka waayay idinka baa joog lidinka waayay iska daaya waxaan waa foolxumo waa faaxisho iska dhaaf ma diideen waa diyaar talaalkiina waa soo dhow yahay ha sugu waayina ay barbarkay ka baxdaa bakay la qaleen talaalkaas uu soo socdaa Soomaalidu uu soo socdaa ayagaana maxay ahayd loo fiirsaday cudurka ugu xun ee Soomaalida haya waxaa la ogaaday inuu yahay qabyaalad oo waliba soo laba kacleeya hadda aad wuxuu ku socdaa xawli zaid ku socdaa marka waa idinka talaalayaa hawlwalina waliba dadkiina qurba joogta ah isdiyaariya see u aragtiin talaalkaas soo socda maxay idin la tahay barnaamijka maanta wuxuu ku saabsan yahay
talaalkii qabyaaladda ها marka asxaabay waxaas wax fiican ma ahan aan iska dayno waxa horumarka aan u gaari la'anahay oo nabad u heli la'anahay oo aan u harsan la'anahay oo maalin kasta isugu dhaganahay sidaas isugu dhaganahay kulligeenba oo maxay ahayd labada meel isugu timaadaba waa qolama aniga reer hebel aniga reer hebel adiga reer hebel adiga reer hebel waxaas goormay ka tageen adduunyada horumartay goormaa laga tagay dhowr boqol oo sano ka hor laga tagay waxaas idinkuna dabadaad haysaan wili oo ku dhagantihiin marka Soomaaliye yaa Soomaaliye wiliba jiilka cusub dhalinyarada baan halkan kala hadlayaa waxaa ku badan qabyaaladda hadda waa dhalinyaradii dadka waaweyn xoogaa waxaad moodaa inay ka yar gaabiyeen laakiin dhalinyaradii generationka cusub bay saameyn baan ku haysaa baasha qabyaaladda la yiraahdo marka waxaan kula talinayaa kulley aniga soo jeedin aniga caasha ahaan wax fiican ma ahan hala iska daayo halaga waantoobo maxay ay tahay heesi waxay noqdeen qabyaalad meesha wax yar oo maaragtay meesha istaagtaba waa qabyaalad meesha aragtay waxa gabdhihii qabyaalad baa lagu amaanayaa wiilashii qabyaalad baa lagu amaanayaa wixii kasta soo bax qabyaalad baa lagu amaanayaa haga u soconaa marka miishay kartaa meesha u socono aad weydiiyeen waxaan wax ka qurux badan oo ku bedelano ma heli karnaa hadaan nahay Soomaali yaa arrintaas baan anigu kulley maanta fikirkeyga baan idinla wadaagayaa idinkuna haddaad wax la mida iyo fikirkaas aad tala jeedin ka haysaan bal igula soo wadaaga commentiga hoose igula soo wadaaga waad kulley waad wax qorqortaane halka igula soo wadaaga barnaamijkeena maanta maxay ahayd talaalkii qabyaaladda oo maxay ahayd diyaarintiisa lagu jiro halkaas ayaan ku soo gabagabeynaya ilaahay mid khayr qabta hanooga dhigo idinkuna kuwaana qaata Allah idinka dhigo waan xasuusinayaa mar labaad haddii aad channelka cusub tahay subscribe share like waa xaggaaga wixii tala soo jeedinana waa xaggayga wixii ra'yi oo rabtid ila wadaagtidna hoos iigu soo qor السلام عليكم ورحمة الله وبركاته